madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland gudoomiyaha baarlamaanka madaxda ciidamada qalabka sida ay kala duwan duqa magaalada Hargeysa duuliye Axmed iyo mas'uuliyiinta kala duwan ee joogta goobta tan xuskan lagu xusayo duuliye Axmed dheere aad iyo aad baan idin salaamay waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaanka bacdi khudbadda ma aqaan halkan oo kale la igaba sii daran iskuulada anigu meel xasan kaliya ka hadli jiray dee halkan oo kale haddaan isku yaaco dee nin madax horteed isku yaacay un baan ahay marka xigta anigu berigii dagaaladu soconayeen dee waan joogay haddaan isle waa la noolaanaya waa geli lahaa jabhadda ee sanamta waa geli lahaa dee isbaa waxaan islahaa dee cidi ka soo bixi mayso meesha haddaan moodayo dee in maanta iyagoo wada nool baan arkay amba waa geli lahaa dee horta markaa waxaan kale oo leeyahay Somaliland madaxda hogaaminaysa wax la libaax nin galada iyo nin ba og cid kasta oo Somaliland qarannimadeeda wax u tartay dadkeeda wax u tartay hadday maanta mas'uuliyiinteena iyo madaxdeenuba ay og tahay qof kastana wixii uu leeyahay abaalmarintiisa ay siinayso tan maanta caddayn u tahay aad iyo aad baynu magaranaysaa waxa kaloo markaa jirta Somaliland waa qaran jira waa qaran ogsoon ciddii wax u qabatay iyo ciddii wax ka qabatayba cidda wax u qaban doontana waa mid ogaan doonta waxaan kaloo aan ku darayaa muwaadiniinta reer Somaliland cid kastaba ha ahaatee toosintu way jirtaa toosinta laftigeeda intaan TV-ga la isla taagin waxa fiican meesha ay leedahay in la mariyo laakiin ninka gurigaaga carruurtaada haday kugu qayliso dee waad yaabaysaa waad ka dhex baxaysaa dee marka dambe bal weyn dadkii waaweynaa ku qayliyeyna ka warrama maxay soo baxayaa dee markaa waxa weeye aynu qarannimadeenu meel wanaagsan bay maraysaa ilaahay ma haddii baynu maraynaa ummaddu qof kasta oo muwaadin reer Somaliland tanun buu qof ku yahay oo dawlad ku yahay oo meel kale dee geli maayo markaa waxaan ku oran lahaa cid kastaba min cirka Somaliland iyo hoosdiisii geli yaan hoos loogu dhaagicine dee dhisitaanka qaranka qof kastaba qaybtiisa ha qaato qof kastana waa la xusi doonaa sidan raalliga warqaddu way ka xumaataa marmar raalliga ahaada madaxdii waddanka tiine waxaan ku soo dhawaynayaa saaxiibkay isaga saaxiibkay waa nin gabayaaya inta Facebook buu leeyahay ku soo dhawow ciise waa dhaftay hadda halkii hadal hooy dhaftay dabas haye diyaaradan qaado oo duqeeyo wada xasuuq ninkii iska diidayo duuliye Axmed Maxamedow abaalan duug lahayn ayuu dadku ku hayaa dalka mida waxaan nahay dawladaha adduunyada dunidaynu joogno daaheen waa calan kaasugan dusheenne duugooba haynina dildilaaca haynina harsadaan dadkiisii dusha magaca ee bana dooroonow rasuulka iyo dul xariira lagu talay difaac qaranku leeyahay degta qoriga suray oo tarajay dilaacsho diiradiisii haysto daalin baynu leenahay duqay talada haysiya dastuurkay qoreen iyo diin baynu leenahay daris iyo xuduud iyo dawaartaynu leenahay daraad iyo sawshalay iyo may kala dambayn waa taa nimankii diroo maantana rays baan degnay ogaada dadkaygiyo ab iyo sinji iyo fac iyo islaamnimo khaalis iyo afkiyo dhaqan koomid iyo ummad yahay Somaliland intay abtirsiin galeen dhammaan ku arooraya ilduufku mar buu dhacaa afaray badow kula helaa irmaan dawdaba guraa ujeedda ahaan dadyow markuu ingiriisku tegey ayaan anbanoo haddana mar labaad af libaax galle ifkii maantana nimee ogaada dadkaygiyo ammaantuu leeyihiiyo ammaanka dhulkeenna yaal allay mahaddiisatee dadkii aasaasayow inaydun ilaashataan aday kugu waajibtahay waxaanu indhaa la iskaba ridee waxaanu iibgeynaynaa adduunka u sheegaynaa aqoonsi ku doonaynaa sidaan isu dooranno astaan noo noqotayaan adduunyada weli ka dhicin waxaan ku soo dhawow waxba ma hayn dee maanta nasiibka iyo ayaanka yeeshay anigu halkanoo kale weligay kama laha ismalayo waad ka hadlaysaa mujaahidiinteenna ama ummadii qarannimada tan u soo hoysay guusha waa kuwa keenay inaanu maanta ka hor qudbadayno madaxdii Somaliland inaanu ka hor qudbadayno halkanoo kale ma baanaan iman jirin marka waxa weeye waanu ilaashanaynaa ma ojiye dee qofkii ya
انت هذا اللي لقى لي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وانت ku daraya madaxweynaha iyagu de hadii anagu burco yiri warda fara soo dhaaf halkan baga hadlaysaane de waxa weeye soo dhaafnada waa joognaa waxaan leenahay madaxweynaha iyaga aad iyo aad nabadkayba oo aad xusuusatay oo maskaxdan lagu haystaa taas waxay cadeynaysaa qof kasta muwaadin reer Soomaaliya qof walba meeshiisa ku ogtahay de hadaad nagu tiri soo dhaaf anagu isma malayn madaxweynuhu idinoogiyo warbu idin hayaa de maradaad la ogtahay aad iyo aad baan madaxweyne ku salaameynaa kulligeen madaxda Soomaaliland waan salaameynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ila liqa